iyadoo uu maanta si rasmi ah isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Garoowe caasimadda Puntland soo dhaweeyeen iscasilaada gudoomiyaha. dadweynaha ku nool Garoowe oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Ariel ayaa sheegay in xilligii loo baahnaa uu iscasilay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. hadda Jawaare waa tagay dabcan inuu intaas aduu iscasilayaba uu naxiijiyo walwaliyana ma ahayn laakiin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan minaha runtii xusuusinayaa in maalin walba shaqo guri loo dirayo meeshii horumar laga rabay dawladda dhexdeedu ay isku mashquulayso sida la adligeed waxaan codsanayaa baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ka gudbo mooshin waxaan codsanayaa madaxdu inay gudahooda ku mashquulsho inay ka gudubto dad isfahansan in hadda la doorto dawladuna ay hore u socoto anagu wax qabad baan u rabnay waan u hambalyeynay farmaajo iyo khayr labadaba marka ma aan filayn isqabqabsigan oo kale Jawaarina waxaan leeyahay waa mahadsan tahay maadaama aad adu iscasishay kan soo socdana waxaan leeyahay hadda la dooran doono haday tan oo kale kugu timaado intii Jawaare naxiijiyay naxiijin marka anu intaasan ku soo gabagabeynaya hadalka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. marka labaad gudoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaare oo iscasilay baan aad iyo aad ummadda u daneeyay isqabsigii faraha badnaa ayuu ummadda u daneeyay qof kasta oo muwaadinana sidaas oo kale laga raba waxa weeye arrintaas waa arrin lagu farxo oo ma garanaysaa isaguna ku amaanan yahay inuu u daneeyo ummadda Soomaaliyeed. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacay waa Maxamed Salmaan Xasan Colaad ee ku nool magaalada caasimadda ee dowladda Puntland ee Garoowe soo dhaweynaya casilaada Professor Maxamed Jawaare oo tanaasulay ummadda Soomaaliyeed maanta u tanaasulay waxa weeye dadka dhalinyarada iyo waayeelka ku dhaqan Puntland aad iyo aad masaako u faraxsanahay waayo farxad guul aan oo soo yeetay markuu aad waxaan mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arintaas ka qayb qaatay hadalkan odayaasha dhameeyay inta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ibraahim Maxamed Yuusuf kala tirsan dhalinyarada Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu Jawaare iscasilo mar horena waa ahayd inuu iscasilo ruuxantii neef baan naga soo bootay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan islahayn xagee wax u dhici doonaan maxaa dhici doona sababtoo aqalkii dhamaa ee dadka matalayay shacabka inay is haystaan oo waliba bil muddo ku dhow hadda ay lunto dhibkeeda ay lahayd anigoo shacabka Abduqaadir Jaamaca Ariel TV Garoowe.